kulanti wanaagsan khiyaartan dhageysanaysa ay ku soo dhawaada waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay dastuurka dalka Soomaaliya. waa barnaamijkii 8aad waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Ayaan la Xuseen Cabdi. qodobka 27aad ee dastuurka dalka Soomaaliya waxa uu ka hadlayaa dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada. barnaamijkeena waxaan uga doodi doonaa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha oo ka hadlaya adeegyada bulshada, caafimaadka, tacliinta, dhaqanka iyo afka. waxaa marti inoogu ah oo igala qayb galaya Cabdixamiid Cabdi Macalin oo ah gudoomiyaha hay'adda Great Caravan Walk Foundation oo ah hay'ad ka shaqeysa horumarinta caafimaadka, waxbarashada, beeraha, sifaynta biyaha iyo shaqo abuurista. Injineer Yuusuf Xariiri oo ah la taliyaha siyaasadda ganacsiga ee rugta iskaashiga horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo Talyaaniga, iyo Falastiin Axmed Dhoore oo u dhaqdhaqaaqda nabadda horeyna u ahayd agaasimihii warfaafinta ee xafiiskii madaxweynaha. ku soo dhawaada barnaamijka. waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa Injineer Yuusuf Xariiri oo aan weydiinayo qodobka ah sida uu arko horumarinta bulshada iyo dhaqanka. qodobkan waa qodob aad qaali u ah, waana qodob international ah oo ka dhaxeeyo adduunka dhan, oo dowladaha hormaroo dhan iyo kulli iyo sharciyada iyo dastuurada la qorto lagu daro. waa sidii loo raboon u qoran yahay, waa fiican yahay, ma xuma. kaliya wuxuu u baahan yahay in la fuliyo oo mataqaana siduu yahay looga turjumo oo la helo qof ka turjumi karo, mas-uul ah, siduu yahay u fuliyo uu u qoran yahay. Injineer Yuusuf, waxaan ka hadli doonaa qodobada ah marka la yiraahdo horumarinta waxaa isugu jiraan dhaqaalaha, waxbarashada, dhaqanka iyo afka. waxaan rabaa Cabdixamiid inaan siiyo sidaad u aragtaa qodobkan dastuuriga ah ee ka hadlaya horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha. muhiimadda ugu weyn loo baahan yahay waxaa waaye markii qofka laga hadlo caafimaadkiisa waa international standard, waana midka muhiimka ee waddan kastoo dhisan. caafimaadka shicibka waa in la eega. qaar waxaa jirta aanan lacag haysanin ama hanti ku filan haysanin. priority-ga dowladda waa inay siisaa kuwa ayaga oo waxba haysanin oo xaqna u leh waddanka inay leeyihiin, ay ka mid yihiin nationalist oo nationality-gooda uu yahay Soomaaliya. waxaa xaq ah oo muhiim ah in caafimaadkiisa biyo nadiif ah la siiyo, sababtoo ah biyo nadiif haddaanan qofka la siinin eventually waxay noqonaysaa dowladda inay haddana dhaqaale kale keento daaweyntii dadka biyaha aan nadiifka ahayn cabbi, ayadoo cudurro badan ay keenayso bilharzia, typhoid, dysentery, cudurro badan oo ay biyahan wasaqda wataan. marka xaq waxaa intaanan waxaa Ingiriis ku maamahay prevention is better than cure. ka hortagga ayaa ka fiican daaweynta qofka. marka aniga waxaan ilaa qodobada siita ila degila. way aad baad mahadsantahay Cabdixamiid. Falastiin, marka laga hadlo arrimahan inkastoo u oroleyso xagga nabadda iyo bulshada, dastuurku wuxuu qorayaa qodobkan ka hadlaya horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha, gaar ahaan qodobka 27aad dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada. si gaar marka loo eego qodobkan muxuu macno u sameynayaa dadka Soomaalida? horta ayaan waa mahadsan tahay, waanan ku dhowahay barnaamijka. qodobkan horta ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed waa qodob muhiim u ah. maxaa yeelay horta ummadda waxay u baahan tahay nabad marka ugu horeysa, marka labaad waxay u baahan tahay waxqabad, marka saddexaad waxay u baahan tahay xuquuqda aasaasiga oo dhan. marka waxaan qabaa horta qodobkan inuu yahay qodob important ah, waana xalka kaliya oo ummadda Soomaaliyeed ay kaga bixi karto dhibaatada maanta haysata. aad baad u mahadsantahay Falastiin. marka waxaan galaynaa qodobadii. waxaan ugu horumarinayaa qodobkan dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada. injineere, marka arrintan si toos looga hadlo dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada maxay yihiin? dhaqaalaha waa dhaqaale. dhaqaaluhu dhaqaale waaye. dhaqaale waa wax oo ugu qofaan dhaqaale haysan guriga haddaanan masruuf jirin dhaqaale oo ka mid tahay.
maba jiraba wax dhaqdhaqaaqa kaleeto waa dhaqaalaha ayaa asaasi ah dhaqaaluhu haddii la haayo haddana waxaa loo baahan yahay tasaruf dhaqaaluhu naftiisa in la tasarufo u baahan yahay in la kontaroolo u baahan yahay in wax la qabto u baahan yahay in la marsiiyo meeshii loogu talagalay ayay ila tahay aniga qof kasta wuxuu xaq u leeyahay biyo nadiif ah uu cabo waxaa horey uga hadlay cabdixamiid falastiin haddaan ku weydiiyo qodobka labaad wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo daryeel caafimaad cidna lagama hor istaagi karo daryeel caafimaad oo degdeg ah sabab kasta oo ay ka mid tahay awood dhaqaale la'aan arrintaa bal ka war ayaan le arrintaa waxaan u arkaa arrin saxa inay tahay maxaa yeelay qof kasta wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad xaquuq buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay marka qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsanba qodobada aan ka hadlayna caawa sidaan u arko waana qodob mataqaana aad iyo aad wax uga bedeli doona dhibaatada ku habsatay dalkeenna marka qodobkan waxaad moodaa inuu si toos u taabanayo marka si toos looga hadlo dadka laga yaabo iyagoo goobo caafimaad leh in qof bukaana oo loo keenay ay ku xiraan lacag inuu bixiyo qofkaas marka qodobkan uu jebinayaa miya waxaan weydiinaya injineerku qodobkaas iyo qof wax leh iyo hala kala qaado waxaa la rabaa in qofka dhaqaalaan la aqaanaa markii la yidhaaho qofka biribaatiga iyo dowladda in la kala qaado qofka biribaatiga wixiisa isagaa iskale lama dhihi karo ilaa qofkan waa inaad daaweysaa laakiin caafimaadka dhanaaba wuxuu ku dhisan yahay in naxariistan waxaa weeye qofka kowda markii la keeno in la daaweeyo waxaa kale jirta marka warkii cabdixamiid haddaan usoo laabto mar uu dhahayay soomaali hadduu yahay qofka in la daaweeyo uu xaq uu leeyahay ma ahayn soomaali calanka territoria somala ninkii soo dhexgalo oo dhex joogo calanka oo maalin caawa ku sugan wuxuu xaq uu leeyahay in la daaweeyo cabdixamiid qodobkan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo daryeel caafimaad cidna lagama hor istaagi karo daryeel caafimaad oo degdeg ah sabab kasta oo ay ka mid tahay awood dhaqaale la'aan qodobkaasi toosa ma u jibinayaan qof buka oo laga yaabo xaalad degdeg inuu ku jiro lacag weydiiya ma jibinaya qodobkan si fiican u jibiyey bini'aadnimadana kuma jirto insaannimadana kuma jirto soomaalinimana kuma jirto soomaaliya ninka caawa si u lugeynaya markuu cid ka soo kordhaco waa loo loogaa meel ay ku qoran tahana ma jirto ama lagu heshiiyey maxaa loogu loogaa ninkaas waa wax noo yaalay qof buko oo cabaadaya oo ambulance soo qaaday ninkii loo keeno first priority is to save the life qofka noloshiisa naftiisa in la badbaadiyo dhaqaalihii qarash la geliyey oo qofka xagga cisbitaalka ka geliyey dowladda ayaa ah inay bixiso basary ama inay bixiso grant ay ku daaweyso 2 public fund raising qofka marna lagama hor istaagsan karo qofkaas lacag ma haystid laguma daaweyna waa mamnuuc haye maxaad ku darleed Falastiin isla qodobkaas inuu qofku mar kasta haddii ay wax la soo darsaan uu gacan bannaan yahay uu u baahan yahay si emergency in wax loogu qabto marka qodobkaas waa qodob sax ah waana qodob aan taageersannahay waana qodob aan dhiiro gelinayno waana qodob muhiim ah waayahay waxaa kaloo ka mid ah waa in la hubiyaa in dumarka dadka da'da ah curyaamiinta iyo dadka laga tirada badan yahay oo taariikh ahaan la takoori jiray inay helaan kaalmo gaar ah si ay u gaaraan xuquuqdooda dhaqandhaqaale injineer yuusuf qodobka bal ka war qodobka waxaa weeye qodob cad weeye oo ninkii wax garanayo uu fahmayo internationalka ah oo adduunka dhan lagu u dhaxeeyo waxaa weeye qofka duqa ah qofka liito qofka curyaanka ah qofka hooyada maalan haddii lagu soo daro kuwa yaryaro naagaha soomaaliya oo la yidhaha garoobada oo waxba haysanin waxaasoo dhan mas-uuliyaddaas dowladda laga rabaa inay qaato inay dadkaas meel ku og tahay dadka ugu horeeyo xuquuqdooda in dowladdu ay meel saarto la rabo kuwaas waaye qodobka waxbarashadaan u galaynaa waxbarashada waa xuquuqda asaasiga ah ay leeyihiin dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed marka la yidhaha arrintaas ma waxay noqonaysaa in qof kasta oo soomaaliya
markuu waxbarashada gaaro gurigiisa laga kaxeeyo lagu qasbo inuu goobta waxbarashada aado siaad u fahantay cabdixamiid wallaahi horta ummad wada jaahil meel lagu soo xalays dhibaatada ma laga baxay weligeed dhibaatada oo lagu jiray jaahil meel aad kada jaahil muski dhali si looga baxo ninka waalidka hadduusan ilmihiisa iskuulka geen aniga aragtidayda waxay dowladda amar waxay u lahaan kartaa inay aabbihii ama hooyadii cunuga mas-uulkeed gudaha ay dhigto midda keliya hadda dowladdan aanan ka codsana ama aanan weydin laha free education tacliinta inay ahaato sababta markii ay dowladda ay ka dhigto tacliinta waa free qiyaas baa jirtaa ay dowladda qaadi karto qiyaas ay qaadi karna waa jirta qiyaastay qaadi karto dowladda inay free ka dhigto ayna ku qasabtay ninkaanan aadin tacliinta loogu talagalay ay maxkamad geyso waayahay si qiyaas la-aana ayayba dowladdu leedahay dhammaan muwaadiniinta waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho lacag la-aanah laga bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare falastiin qodobadan marka waxbarashada waa xuquuqda asaasiga ay leeyihiin dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed marka laga hadlo waa soomaalida keliya ku koobantahe dadka soomaaliya la nool kuma jiraan soomaha meeshan sida ka muuqata wallaahi dadka soomaalida la nool waxay soo geli karaan horta marka soomaalidu wax hesho taas ayaan qabaa teeda labaad waxaa dhici karta in dadka qaarkiis ilmaha ay guriga ku reebtaanba ay waxbarashada ka hor istaagaan waxaan qabaa taas mas-uuliyaddeeda inay dowladdu qaado oo ilmaha guryaha haddii laga reebo guryaha laga soo saaro because waxaa weeye noloshu waa aqoon waa iftiin dee waxbarashaduna inay noqoto mid free educationa in la helo si qof walba uu horumarkuu doonaya u higsado sidaas ayaan qabaa waayahay ka khibrad ahaan haddaan kaa faa'iidaysano waxaad ka shaqaynaysa madaxtooyada soomaaliya agaasimihii warfaafintaad ahayd oo waaxda warfaafinta madaxtooyada dowladda siyaasad ahaan waa isla qodobkii ay dowladda ku dhaqmi jirtay xilliga ah sidee lagu dhaqangeliyey waa tii ololihii dhammaa dhacay maxaad nooga sheegi kartaa waay aragnimaha go-aankaasi markii la qaatay sida uu ku dhaqangalay waalidiinta looga dhaadhiciyey inay waxbarashada caruurtooda geeyaan qodobkaas wax weyn baan ka sheegi karaa maxaa yeelay waxaad og tahay annagu markii dowladdii soomaaliya ay jirtay waqtigii colonistiga waddanka waxaa ka jiray afaf qalaad baa ka jiray annagana waxaan qabnay barnaamij la yidhahda af qalaad aqoonta miyaa waxay nagu ku qasbaneen marka inaan luuqadannadii aan baranno marka dowladdu waxay samaysay wax la yidhaahda manaahijtii hiddaha sare iyo tacliinta manaahijtii hiddaha sare iyo tacliinta markay soo bilaabatay waxaanu gaarnay ilaa geeraha hoostooda inaan ololihii geyno in mataqaanaaye islaamihii ariga la joogay wax la baro wiilashii geeljirta in wax la baro ayadoon uga dan leelahay horta qodobka koowaad inaan anagu luuqadanada kor soo qaadno si aan u noqono sida dadka adduunka u nool yihiin oo kaleeto marka dowladdu sidaa ayay ku bilowday awoodeeda ma barashada ma ku xirna da barashada kuma xirno dheer ama gaabni barashada waa furan tahay aniga weli waxaan cod ku dari lahaa in lagu daro dadka waaweyn xataa reemiyii geedka hoostiis fadhiyo in tacliinta la siiya xuquuqdiisa ka mid tahay xaq uu leeyahayna waay waana berrita qof dumar baa loo soo qoray warqad ninkeeda meel jira u soo qoray ma qof bay ola digaysa walaalayo ninkeyga muxuu yidhi ii akhri privacyga meesha waa dhimatay markaan waxaa leedahay xaq waa inkastoo caruurta loo qaadan karo laakiin markaad qodobka sii tixraacdo ma muuqato in caruur keliya la sheegayo dhammaan muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho lacag la-aana ilaa iyo dugsiga sare marka taa waxaan u malaynayaa qofka markuu imaanayo kolleyba hadduu weyn yahay hadduu yaryahay waa inuu dugsigii hoose iyo intaaba maraa ay la tahay ma muuqato in la leeyahay caruurta keliya hadduu yaryahayba waa inuu aqoon helaa laakiin ma muuqato in la leeyahay qofka weyn kuma jira meeshan ama waaya injineer haya taas hadda wax oo laga hadli karo maahan micnaha waxaa weeye waxaaba loogu hadli karin waddan dad oo degan oo waddan dhan joogo oo soomaali la yidhaaho oo aqoon lahaynin oo la dhahayo qof hebel waxba ma yaqaano dowladday ceeb ku tahaba dowladdu waa inay mataqaanaa libaaxa gacanta xoogga ugu badan ee aqoonta gelisaa maxaa jira taas nin walbo oo wax amba wax naqanaayo wuxuu soo maray waxbarasho ninka kalena xaq uu leeyahay in la siiyo inaa xaqiisa siisid adiga madaxweynihii waddankaa tahay waxbaa baratay alloora kan aan wax baran xaq uu leeyahay howsha howl ugu horeysaba waaye in qofka waxbarashadiisa xoogga la saaro
waxbarashada marka haddaan ka hadalno soomaaliya waxbarashadan hadda la leeyahay tacliinta lacag la-aan ha noqoto ilaa dugsiga sare ma qaadi kartaa haddaan kugu celiyo injineer si fiican ayeesha haddaa igu soo celisi soomaali waa qaadi kartaa soomaali waa ka badan tahay soomaali lacagteeda meel la kala geynaya male aniga mataqaana nin iiga aqoon badan waa yaryahay barkeed dowladihii jira dhan baan la soo shaqeeyey waa ogahay dhaqaalaha soomaaliya iyo dadku intuu yahay waa garanayaa soomaali lacagteeda ka badan xoolaheeda dad u maamulo kaliya ilaahay ha u sahlo haye cabdixamiid ma qaadi kartaa soomaaliya in tacliinta lacaglaan laga dhigo sida qodobkan uu xusayo waa maasantay waxaa ii muuqataa inay qaadi karto waxa wadanka bes u baahan yahay wax la management natural resources xawayaankaa jira beerihiyaa jira xitaa badda xeebta ugu dheeray soomaalileed africa haddana waxaa ka buuxaa khayraad ciida ka badan inta beri ku nool baddana ku nool many types oo kala gooni oo malaay adduunyada meelo qaar aan laga helin waa jira it only needs waxa uu loo baahan dowlad dadka u baahan dad reality-ga wadani u dhasho oo wadankooda u diyaara inuu istaagaan haddaan ku soo laabto qodobkaas haddaan ku soo laabto waxay xoogaa yar oo ku darid inaan idinkugu daraan rabaa maalan aniga nin odayaan ahay waxaan ka qayb galay qiimayntii soomaaliya waagii dowladda hore jirtay waddanka soomaaliya ayaa loo baahday in dhaqaale loo raadsho dadkii loo magacaabay oo ka qayb galeen in dadka waxaa laga wacay adduunka dhanaa la wacay bangiga adduunka la wacay soomaaliya dhanaa la xisaabinayay waxaa la fiirinaya dhaqaala loo raadinayay in dhaqaalo waddanka helo markii dhaqaalaha aan raadinaynay oo laysku keenay waxaan u tagnay ilaa waxaan tagnay xoolaha oo nool ilaa beerahaan xisaabnay xoolaha la xisaabay adduunka dhanaa qiimeeyey markii wax walba la qiimeeyey oo meel walba intaan tagnay la tegey maalintii dambe waxaa igu badnaa ee qosolka igu darnaa aan tagnay meel geel buuxaan tagnay geeli markaan tagnay geeli la fiiriyey helicopteraan wadanaa waa la fiiriyey geeli marka la fiiriyaa la yidhi bargeelan tirada badan la yaala madaxweynaha iskalaha la yidhi madaxweynihii la dhahayay madaxweynaha oo soomaaliya ayaa geelan tirada badan leh iskalaha la yidhi hadday ugu soo dhacdo markaas waa marar waa ila moodaa barkee xoolaha oo waddanka uu leeyahay ma ahan mid caadi ma ahin waa waddanka kaliya ugu dhaqaalaha badan waa waddanka kaliya ugu resource badan waa waddanka kaliya ugu macaan badan xataa qudaarta kale waa ka macdaha ninka xisaabtan ka warqabo marka suuqyaalka adduunka malaaygeena la raadiyo hayaa waxaa la raadiyo hayaa mataqaana muuskayna waxaa la raadiyo hayaa qudaartayna waxaa la raadiyo waxaa la weysan yahay ninkii garan lahay oo maamulkaas toosin lahay ayaa la weysan yahay hala raadiyo barnaamijkan waxaa diyaariyey Aamil Media Limited. waayahay falastiin qodobkan marka laga hadlo in la leeyahay tacliinta waa lacag la'aan oo qof kasta Soomaaliya si bilaash wax ku baranaya marka meesha waxa kaaga muuqanaysa in dawladdu ay qarash gelinayso xarumaha waxbarashada dhan ay dawladda yeelanayso ma qaadi kartaa Soomaaliya xilligan arrintan wallaahi dawladda Soomaaliya way horan horta way u soo qaaday oo wax hadda annaga nagu cusbata dawlad ahaan ma nihin maxaa yeelay dawladdanadii wadamada reer Yurub ayadoon waxbarashada free laga helayn ayaan waxbarasho free farseekin free caafimaad free helayn marka wax ay sameyn karto mas'uuliyadaas iyo masiirkaas dawlad qaadi karta tahay ayaan aaminsanahay dalkeenuna dal gaaja ma ah waa dal deen oo khayraadkiisu ka buuxo marka haba yaraatee maba arkaba wax hor istaagi karaba arrinta waa arrin aad u fudud baan qabaa laakiin waxay ku xiran tahay sidii mas'uuliyadeeda loo qaadi lahaa sidii loo wajihi lahaa taasaan qabaa tii haddaan idiin sheegay markaan qiimaynay bangiga adduunka wuxuu furay dhaqaalaha ugu weyn oo u furay dawladdii wuxuu yidhi wax alla waxay rabaan hala deymiyo barkee dhaqaalaha ay haystaan ma jirno haddeer oo aan idinla hadlaayo oo hortiina aan taaganahay war aniga ma dhimanin duq baan ahay mooyaane waa noolahay waxaan idiin sheegaa kulligiina waxaa jirta deyn la qaato oo la yidhaha bariilla waxaa la yidhaha dhulka hoostiisa deynta lagu qaato waxa kor saaran iska daaye aqoon bay u baahan tahay adduunka waa ku siinaa bangiga adduunka waa bixinayaa
waayahay aad baad mahadsantihiin waxaan u galaynaa qodobkan qodobada horumarinta ka mid ahaa ee ahaa dhaqanka iyo afka oo halkan lagu xusay waana ku faraxsanahay in arrintaa maaragtay aad igala qayb gashaan waxaa la leeyahay dowladdu waa inay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suuban ee shacbiga soomaaliyeed iyadoo ku dadaalaysa inay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan soo baxa ah ee wax u dhimaya midnimada ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada dhaqanka afka waa muhiim qodobkan hadda cawada oo meeshan ku yaalo kulligiis waa dahab weeye kulligiis waa fiican yahay waxa uu u baahan yahay akhay dad fuliyo wax waa la qori karaa beebar waa la samayn karaa wax walba la samayn karaa waa la qori karaa waa taala dadka tuugtamaayo oo dhahayo dhibaata Soomaaliya haysato raalli waxaan ahay kulligiin Soomaali saa u tihiin dhaqaalihii aad heli lahaydeen oo nin walba darbiga lacagta ka baxsanahay in la siiyo welfare aan bixino buruntii uu yahay wadanka waana la hayaa dhaqaalahaas cabdixamiid marka laga hadlo qodobkan dhaqanka iyo afka ayaan u galaynaa dowladdu waa inay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suuban ee shacbiga Soomaaliyeed iyadoo ku dadaalaysa inay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan soo baxa ah ee wax u dhimaya midnimada ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada saad u fahantay horta dhaqanka waa loo qasbay waayo marka diinta ka soo tagto dadka waxay leeyihiin dhaqan aan leenahay kala dambeynaa jirta ixtiraamaa jira xitaa yurub kuma arag nin weyn oo kursi loo kaca ma arkin laakiin dhaqanka annaga aan leenahay waxaa waaye hadda gaari uu soo galo qofka uu kaa da'weyn yahay kursiga looga kaca taas maxay ku imaatay dhaqankan leen qof dumar oo liitaa arkaysaa wax alla wixii loo qaban karaa loo qabanaya sababta waxaa dhaqankeena oo xaq waxaan leenahay runtii marka loo dhaqanka ugu fiican inta Yurub hadda dhaqanka ugu fiican haysana waa lagu qasbay dhaqanka in dawladda horumariso ay weli ay ku faandarna because this is part of the culture waa culture aan harayn way laakiin nin soo baxo dhaqan cusub oo labada madax labada gees ka xiran oo dhowr leh shimbirtii hore wadanka ku noolaa cali dhowr jiro dhowrta lahayn jirta ay hadda lala orday caadada ka dhigto dhaqan taas ma qaadan karna way no ma qaadan karno dhaqan waan leenahay dhaqanka inaan ku adkeysano Falastiin haddaan aragtidayda ka dhiibto horta dhaqan iyo bulsho horta waxay ummadaha kale kaga duwan tahay waa dhaqankeeda iyo afkeeda dhaqanka iyo afku mar hadday kaa lumaanna hadeed waxaadba tahay wax dhalanteeda adigu dhan marka horta arrintaas waa arrin muhiima marka in dowladda laftirkeeda dowladaan dhaqan lahayn oo dhaqankeeda ku dhaqmaynin macna laftirkeedu macna ay yeelan kartaa ma jirto marka horta waa qodob aad iyo aad muhiim u ah in bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo hiddaheeda iyo afkeeda inay ku dhaganaato waxaa soo haray caadooyinka cusub soo kordhiya caadooyinkaas haddaan ka hadlo waxa weeye caadooyinka laftirkooda hadday caado fiican ku jirto waan ku dayanaynaa marka waxa weeye adduunku horumar buu ku socdaa لأنه لكن وحي حنا وكتجينا بركي مرة بنو وحي وناكسنو أدونك كوسا كردو إن أنك جسوا كجهرنو عادو يمكن نكرينا نكو إكانو وين أن نقولنا وضع الملت كل جرالة وحي وناكسنو أدونك كوسا بحقارن كرا تاننا أنا هيسنا لكن أفكار كله دقن كيو كمديا ووحي أصل كهاي قف كله جران كرا وحوي هاي وحبا ورا لقى في رياض ديادو الاحترام تحوي إن قف كستمانتا دركي ودقن كلها يلقديس أنا لتكورين ملك سود ديادو كجو مركا سوماليا hadda wax badan baa dhacay dad badan baa dibadda u qaxay carruur badan baa ku dhalatay laga yaabo afkiina aysan aqoonin arinta marka dawladdu maxay kaalin ka qaadan kartaa injineerka Falastiin oo ku soo noqonaya injineerka arinta dawladda waxay ka qaadan kartaa dawladda iyada dawladan ah iyaga laga rabaa inay wax toosiyaan ninka wax dawladda ee asaga laga rabaa kii command falalejo yiraahdo Talyaaniga kii command falalejo sharci asaga laga rabaa ninka war ninka wax naqanayo ku talagal in laga rabo waxaan oo dhan adiga laga rabo hadana aqoonina raali aaw haya Cabdixamiid afkii wad ogtahay Ingiriiskaad ku nooshahay dhalinyaradii Soomaalida iyo qurbihii la galay iyo xitaa qaar badan oo qurba tagin xitaa oo jecel af kale qalaad inay ku hadlaan maxaa arrinta ka dhigaysa muhiimad oo waa afkiis sababta xitaa nimankan aan la deganahay ama wadankan Kenya aan deganahay xitaa waxay dhahdaan luqaya mama luqadda hooyo waa hooyo markii loo waa wadankaaga luqadiisa waa inaan barata muhiim
sababtoo wuxuu caddaynaya nationalitygaada ku xatay ayaa luqadaada sheegay dhaqankana aad sheegayso aan sheeko yar kuu dhiibay waagii midabta koorka South Africa ayaa niman madow tageen Soomaaliya tageen South Africa nimankii waa la garan waayo xarada cadaanka maqaayadihii meelii cadaanka u go'naa ayay aadeen nimanka madow maxayin maqaayad bay galeen oo fadhiisteen waa la eego laba dhowr nin cadaan isweydiin nimankan meesha soo galay maxayin mida wuxuu yiri waan u maleynaa inay yihiin Soomaali ku kale wuxuu yiri waa Ethiopian marka dhaqan caado ay leeyihiin Soomaaliya jirta haddii koob u hore shaha loo keeno ninka u hore loo dhiibo hadduu isdhaafiyo kan kale u wareejiyo nimankaas waa Soomaali haddii koob u hore loo dhiibo dhaafin waayo asaga la haro Soomaali ma waa ajnabi kale waay marka saasay dhaqankaasi ayaa leenay oo sharafta ay magacaas leh marka dhaqankaana dib ugu noqon xaqan u leen waa arrin wanaagsan weeye Falastiin maxaad ku dari lahayd arrintan gaar ahaan adiga laga yaabo inaad xogaa lu tahay horan baad degan tahay Soomaali badan baa halka ku nool carruur badan baa halka ku nool arrintan dhaqankii iyo afkii Soomaaliga ma jira wali markaad ka hadasho gaar ahaan dadka soo koraya ubadka ah ee ubaxay wadanka ah ayaan le horta aniga qurbaan ku noolahay wadan koolan baan ku noolahay ilmaha iskuulii dhigta mararka qaarkood ilmahayga qaarkood waxay ku sheegaan macallimiintu inay bakhaafta yihiin bakhaafta waxaa lagu dhahaa afka Nederlandka macnaha ilmo aqli badan ama maskax badan markay yiraahdaan ilmahan da'diisa iyo ismale aqoontiisa iyo maskaxdiisa maxay tahay sababtu ma gurigaad wax ugu dhigtaa oo iskuul tuushina hadgeysaa والله أنا ما بأودو رنتي دي قف أم بوحانة بوطلان أو أرجاني بحانة وأنا الشجع وحان ده هذا أنا دولة بان وشقية مشار بان قاطع إن سكول برايفت اللي مجيستو ما أودو لكن وحان قياس ياه إن لو قد هو ينجرو كبر إنه يكبت ويوقف تجريان وحيدين وحان صوبارنا المبضون أجانب مركي الموت بيتال خبيدان مركو لبل لو قدو ديقانو لو قد جرو ذا اللوجة حمله يلو قد برنانك المها هلك لو قد هيستأنو كأقوم بديه هرتا واحد ساج لسميه نقطي مركا هرتا قفكو إنه لو قد يسيقانو بيسكلي وواحد أسجع مسكين أي عقليا وفيعا ماشي اسكو حرنان هدينا جيرينين إتقن قف كليو ما يلالين كره markaan unit noon isla wada joogno dhaqankeena waa ilaalin karnaa barke waxa weeye dhaqankeenaanba ku dhaqmaynaaba mataan sida ma taqaanaaye waa diinto kala ma dhihi karo laakiin waa qayb kamida nolosheenii ma fahamtay marka sib aan wuxuu ku badbaadi karaa in Soomaalidu ay isku xirnaato iska warqabto anagu waxa weeye dhaqankeenu siyaalo badan buu hadda u kala lumay siyaalo kala badan buu u baahsan yahay in dib loo soo nooleeyo baan ma taqaan dhaqankeenu ku kabi karnaa waataa dhegaystayaal waxaa intaa inoogu dhan barnaamijkan oo aan uga hadlaynay horumarinta dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada waana qodobka 17aad ee ka mida dastuurka dalka Soomaaliya barnaamijkan waxaa igala qayb galayay Cabdixamiid Cabdi Macallin oo ah gudoomiyaha hay'adda Great Caravan Work Foundation oo ah hay'ad ka shaqeysa horumarinta caafimaadka waxbarashada beeraha sifaynta biyaha iyo shaqo abuurista injineer Yuusuf Xariiri oo ah la taliyaha siyaasadda ganacsiga ee rugta iskaashiga horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo Falastiin Axmed Dhoore oo u dhaqdhaqaaqda nabadda horeyna u ahayd agaasimihii warfaafinta ee xafiiskii madaxweynaha intaynu dib isku maqli doono barnaamijka kan xiga waa ayaan la Xuseen Cabdi oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo barnaamijkan waxa soo saaray Aamin Media Limited wa iskaashi gobanimo wa adeeg